السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقائق مير البوتشوتان وحالتين رجالية خير بدن بشبشي برواقو إن العافمات قبتان الحمد لله رب العالمين كان كذا قد أول سنة وفاطمة فيلسن قف كذا لها اللي وانا فاطمة فيلسن خير بدن بإذن رجالية يبرواقو يبشبش يعافمات يا إذن رجالية أصحابتي دقائق ما أنت شيء كذا إنه حكوا صابصن تهي وحدر إلهي وقتكتو إلهي أياكو بدلا qisadan sheekadan oo ku dhacday qisadan waxaa ka sheekeynay sheekha ninka ay ku dhacday ayaa ka sheekeeyay ilaahay u naxariisto hadda uu dhintay waa mar hore waqti hore ayay ahayd marka wuxuu yiri Ciraaq ayaan ka tagay buu yiri waa mar uu dhalinyaro ahaa ayuu Ciraaq ka tagay marka waxaan tagay magaalada Dimashq markii aan tagay buu yiri waxaan furtay yiri meherad oo lagu gado buugagta deetana wixii markaan buugagtii furtay meeshii shaqadeedu way ii fiicnayd alxamdulillah maalin maalmaha ka mid ah waxa ay imaatay buu yiri gabadh iyo islaan isla socod deetana wixii gabadha maasha Allah gabadhu waxay ahayd aad qurux badan aad iyo aad qurux badan bay ahayd gabadhu wixii quruxdeedii baa la dhacay deetana wixii gabadhii buug bay iga gadatay buugtu wixii beec raqiis ka gaday aad raqiis ah aad ay ugu tanaasulo yiri beec waxa la gada ka ugu dambeeyay ayaan ka gaday marka wixii beec ka gaday hadana maalin kale ay igu soo laabatay hadana sidoo kale wixii buug ayaan ka gaday sidoo kalena raqiis ayaan uga gadoonay wuxuu yiri gabadhi aad ayaa u jeclaaday gabadh aad u qurux badan wixii dayax aad u malayso ayay ahayd gabadhi saas ahayd wuxuu yiri islaantii la socotay baa u tagay markaas waxaan ay buu gabadha waa rabaaye balka warra markaas tii gabadhan miyaad ogeyn bay tiribiye gabadhan in sargaalka magaalada u sareeyo uu qabo haduuna maqlana saddexdeena buu naqdili bay tiri kaw midkeena xataa kama tagay deetana wuxuu yiri waxaan idbi haday saata aniguna gabadhi kama hari karee xal markaas ay tiri buu yiri hal mid aan sameyn karnaa lacag ayaa ka xigtay lacag meeqay oo baan leeyahay markaas ay tiri lacag ah 50 diinaar oo dahab dabcan 50 diinaar oo dahab waqtigaas qofkii lacag haystay lacag saas u badan kuma is ahayn laakiin qofkii iska faqiir sidiisoo kale way ku badnay wuxuu yiri 50 diinaar wuxuu yiri raadiyay waa soo ururiyay cash baan ku shubay islaantii baa u geeyay waxa ay biiba 50 diinaarada iga qabo hay'ad tirbiyeeri gurigaaga iska tag caawa iyada ku imaanayso afii caasha u diyaariyay cabitaan baa u diyaariyay gabadhii waa ii imaatay marka ii imaatay baa wuxuu yiri aan cuntaynay wixii cabaar sheekaysanay cabitaan iska cabnay baa wuxuu yiri cabsi la igu riday war ilaahay ka baqayni war ma ilaahay baad gabadhna saari kula caasin oo qof muslim wuxuu yiri waa aniga khushuucay buu hal cabsi aan leeyahay riday deetana wuxuu yiri cabsidii ka dambe waxaan baaribi gabadh intaan u midnaa balcaawa anigu diyaar ma ihi iska tag baa iribi gabadh wixii waa xanaaqday waa iga tagtay deetana wuxuu yiri waa iska joogay habeenkii waa iska seexday aroortii wuxuu yiri shaqadeydii iska aaday barqadii baa waxa soo maray biyo gabadhii wuxuu yiri aad xanaaqsan iyo hooyadeedii baa soo maray biyo shaydaankii ahaa baa hadan fi iqa khayra markaas wuxuu yiri shaydaankii maada dadkii wanaagsanaa maada saalixiintii war maada dadkii iyagu adduunka jooga jannada loogu bishaareeyay wuxuu yiri shaydaankii waa iqa khayra deetana hadan wixii meeshii baa ka miisoo gabadhii wuxuu yiri hadan waa wixii gabadhii raadiyay islaantii u tagay waxaan ugu baliga raali ahaada gabadhi mar kale inaan la kulmaan rabaa deetana waxay tirbiyo dib ma lahaan markii hore 50 bay ahayd yaa hadda 100 baa laga dhigay 100 hadaad keento oo dadka ku iman gabadhi deetana wuxuu yiri 100 hadana raadiyo wuxuu soo ururiyay wado 100 wuxuu yiri waan keenay kiish baa ku soo shubay wixii islaantii baa u geeyay markaan u geeyay gabadhi hadana waa ii imaatay habeenka
haddana wuxuu sidii oo kale cabsi unbaa ilaahay igu riday. markaasaan idhi buu yidhi haddana baa diyaar ma ihiye iska tag baa idhi. gabadhi wixii waa iska soo baxday. waa iska joogay wuxuu yidhi gabadhi anoo sidii isaga jooga wuxuu yidhi baa meeshii meheradda wuxuu yidhi igu soo hormarmartaa biyadii islaantii iyo wuxuu yidhi kii shaydaan ahaa dee wuxuu waa igu dhinacoo iga taagan yahay unba wuxuu ii qaaqaayira. gabadhi wuxuu yidhi waa aniga haddana raadiyey islaantii baa haddana raadiyey. gabadhaa inaa islaanta marti ma ogi inta ka horreysa wuxuu yidhi ma arki kartid. deetana wuxuu yidhi islaantii baa raadiyey. islaantii markii aan raadiyey baa wuxuu yidhi u tegay waxaan idhi buu yidhi bal gabadhii baa rabaa mar kale inaan la kulmo oo kaasay tiri buu yidhi markii hore 100 bay ahayde 150 baa hadda lagu arkaya. kaasaan bii 150 dhib ma lahaan bal 150kii baa wuxuu yidhi raacdo ugu maqnaa. 150kii baan soo raadinay waxaan go-aansaday buu yidhi inaan meheradda gado. markaa meheradda gado kadib lacagta ururiyo isku dardaro aan gabadha u geeyo. micnaha wuxuu yidhi gabadha jacaylka ii hay dartiisa wuxuu yidhi meheradaydii wax dhib u xaraashi rabaa. deetana wuxuu yidhi anoo weli lacagtii meheraddii beecu raadinaya baa markaas waxaa haystay buu yidhi waddanka ingiriiska haystay. baa waxay soo saareen biyo go-aan ah waddanka wixii imaaday een waddankaa u dhalanin kulli inay ka baxaan. wixii go-aankii markii lasoo saaray meheraddi baa iska gaday waddankaygii baa iska aaday. ciraaq baa iskaga laabtay dhah waan ka baxay. deetana wuxuu yidhi waxaan bilaabay ganacsi baan bilaabay wuxuu ka ganacsan jiray dumarka oo shaqaalaha ah oo maxaa la dhihi jiray guryaha ka khidmeeya baa wuxuu yidhi oo micnaha waqtigaas dad adoonsi baa jiray. dad adoomo oo badanaad keensanaysaa waaday kuu joogayaan lacagaa qof ka qaadanaya qofkaas waa kaa gatay saasaan samayn jiru. deedna wuxuu yidhi nimankii ingiriisaa waddanka haystay dagaal baa lagu qaaday. dagaalkii wixii la wada waa la jebiyey. waddankii wuxuu yidhi waa laga qabsaday dowlad islaamiya qabsatay. marka wuxuu yidhi dowlad islaamiya qabsatay amiirkii markaas dowladda haystay baa wuxuu iga soo codsaday buu dhahay gaba shaqaale ah maadaama ani shaqaalooyinka gado gaba shaqaalo iga soo codsaday oo guriga uga khidmaysa. deedna wixii gabadhii baan geeyey. gabadha waxay ahayd lacagta markaas aan aniga gabadha ku gatay 100 diinaar oo dahab ayay ahayd. deetana waan geeyey gabadhii wixii markaan geeyey 90 diinaar baa laysoo siiyey 10 baa ii dhimanay. waxaa la yidhi 10ka mar kale usoo laabo. haye baan idhi wixii waan laabtay 10kii baa u laabtay. wuxuu yidhi markaan u tegay amiirka wuxuu yidhi hala geeyo baytulmaalka hala geeyo gabdhaha lasoo qabtay gabdhihii lasoo qafaashay oo halkaa jooga gabdhaha ka mid ah ha qaato. micnaha 10kii diinaar gabadh gabdhaha ka mid ah ha u qaato. deetana wuxuu yidhi meeshii baan tegay waa la ii furay gabdhihii baan dhex galay waan fiirfiiriyey saa waxaaba ku jirta gabadhii berigii ya gabadhi wuxuu yidhi waagii baaba ku jirta aan jeclaa. markaasaan ibi tan baan rabaa. haye wuxuu yidhi gabadhi laysoo siiyey waan soo kaxeeyey gurigaygii baan keenay. markaasaan ibi ma i garanaysaa say tiri maya. markaasaan idhi buu yidhi ma xasuusataa nin 50 diinaar maraad ka qaadatay 100 mar ka qaadatay markii dambana adoo 150 ka sugaya sidaa ku tegay. markaasay tiri buu yidhi haa ninkii baan ahay buu yidhi. dee wuxuu waa qof dagaal iyo jab iyo rafaad iyo dhib soo martay oo dee wuxuu waxba kama xasuusato micnaha qofkii aan markaa ahaa ma i xasuusato. gabadhi wuxuu waaba qaraxday markii meeshii ku islaantay buu yidhi. marka wuxuu gabadhi meeshii ku islaantay waan xoreeyey waan guursaday. marka wuxuu yidhi caruurta isaga kow qisada wuxuu ku bilaabay waa idinka hilmaamay. kow qisada markii hore wuxuu ku bilaabay caruur cadcad oo isaga usoo gashay baa waxaa weydiiyey niman la joogay maadaama caruur baa usoo gashay. caruurtii wadaadka si fiican bay u salaameen sheekhi si fiican bay u salaameen way ka baxeen. marka niman la fadhiyey baa weydiiyey waxay dhaheen caruurtan isuma ekidine maxay ahaayeen maxaa isku ahaydeen. marka qisada halkaasuu ka bilaabay oo qisada markaa isaga markaasuu ka sheekeeyey.
marka caruurtaas gabadhii saas ahayd baa waxaa eri buu yidhi 150 diinaaro dahaba ay iga sugaysay maantana waxaan kugu helay 10 diinaaro dahaba 10 baan kugu helay bal ka waran baa eri buu meesha wixii ku islaantay ana waa xoreeyey waan guursaday marka wixii caruurtaas ayada ayaa ii dhashay marka qisada waxaa waaye waxaa dar ilaahay uga tagtay ilaahay ayaa kuu bedela sababto bal hadda ninkaasi dar ilaahay horta xumaan uga tegay inkastoo shaydaanna kolba ku celcelinayo oo xumaantii ku dhaqaaqin oo kolba ku yara laabanayo hadee niyada uu ka rabay oo una laakiin ficilkii samaynin haddana ilaahay baa u bedelay oo gabadhii uu saa u rabay ilaahay baa inta usoo sakhiray u keenay marka asxaabteena qaaliga ah qisada halkaas ay ku eg tahay halkaas ay ku dhammaatay khayr badan baa idiin rajeynayaa haddaad horey noola joogto waa mahadsan tahay hadda nagu cusub tahayna soo dhawow ayaan ku leenahay subscribe-ta dhac ku sii like-ta iska taabo soo dhawaada